hadday markii kugu horeysay aad channelkeena soo booqato waxaan kaa codsanaa maxay ahayd inaad channelka kusoo biirto kadibna subscribe aad saarto aad gambaleelka furato kadib notificationka aad all ka dhigato si ay kuu soo gaaraan dhammaan casharada aan samayn doono. Hi guys, assalaamu calaykum. Waaniga Cabdifatax Ibraahima xagga nagala socotana waxa weeye Somaltech. Maanta waxaan ka hadli doonaa cashar ka mid ah extra lessonskeena aan kusoo qaadanayno maxay ahayd had iyo jeer waxaan kasoo qaadanaa casharo dheeraad ah. casharadeen qaarna waxa weeye extra qaarna waxa weeye casharo si xiriir ugu socda aynu dhigano si joogto ah iyo kuwa maxay ahayd mar baan kusoo qaadano wixii hadda muhiim ah. maanta waxaan soo qaadan doonaa cashar muhiim ah oo maxay ahayd ku saabsan qaabka ugu fudud ee aad background-kaaga ama sawirada background-kaaga aad uga saari karaysid maxay ahayd adigoon isticmaalayn wax software sida Photoshop-ka iyo maxay ahayd online software-ska aan isticmaalayn sideebaad uga saari karaysaa. marka waxaan ku tusi doonaa website mobile-kana ku isticmaali karaysaa sidoo kale waxaad ku isticmaali karaysaa waxa loo yaqaano computer-kaaga. marka computer baan ku isticmaalaynaa inagu. Okay, waxaad soo furi doontaa maxay ahayd browser-kaaga. marka computer baan hadda ka isticmaalaynaa browser-kaaga soo furi doontaa waxaad ku qori doontaa remove.pg sida xagga hoose ka arkaysid qoraalka. marka xagga waxaad ku aragtaa upload image ama waxaad samayn kartaa inaad drop siiso oo aad ku qortid maxay ahayd URL-kaaga ama xagga uu ku yaalo. marka hadda waxaan soo qaadanaynaa image computer-ka inagu jira oo soo upload garanaynaa. Okay, image-yadu waa isku wada mid maxay ahayd image-ka doonta soo qaado. marka waxaan soo qaadan doonaa hal image oo xaggan inoo yaala. waxaad oran doontaa open bayn oranayna. Okay, marka wuxuu ku sameynayaa 1 minute wax ka yar hal second. Okay, image-kayga hore sida arkaysid xagga midigta waa ka yaala image-ka originalka. image-kayga kalena waa ka xaggan yaala oo waa transparency buu ka dhigay oo background-kii waa removed baa laga dhigay. marka waa download garaysan karaysaa ama waxaad samayn karaysaa option kale aad leedahay oo ah maxay ahayd in aad edit ku samaysid ama aad wax ka bedel ku samaysid. mostly sida wax ka bedeli karaysaa waxa weeye inaad background-kaaga bedeshid sida xaggan oo kale oo background-kaaga aad ka dhigtid noocaas whatever color-ka uu doonaha noqdo ama maxay ahayd color kale xaggan ay ku yaalaan. haddaad prefer garanaysid mid kale oo ku yaala meeshana waad soo upload garayn karaysaa oo markaad ka bedelaysid. Okay, color-kiisaad bedeli karaysaa whatever wax kastaad ka bedeli karaysaa. Okay, marka waxyaabahaas oo dhan ka bedeli karaysaa. kadibna waxaad oranaysaa okay baad oranaysaa haddaad doonaysid kan aad wax ka bedeshay aad edit ku samaysay xagga hoose download baa ku qoran waad ka download garaysan karaysaa. haddii kale haddaad doonin oo kaliya aad u baahan tahay inaad ka saarto background-ka kaliya waxaad ka noqonaysaa cancel baad oranaysaa kadibna waad download garaysan karaysaa. automatically waxa kugu soo degaya sawirkaagii aad ka saartay maxay ahayd background-ka. marka casharkan waxa weeye cashar fudud oo muhiim ah qofku haddii uu degdegayo kale markuu degdegayo oo aanu isticmaali karin Photoshop oo kale inuu ku samaysan karayo maxay ahayd background-kiisa waliba si macaan uga saari karayo oo aan khalad ku jirin. waxa laga yaabaa Photoshop-ka inay meel yar ka raacdo oo hawl badan ka gasho xaggan wax ku raacayo kaliya taa hal second kaliya kaaga baahan yahay uu kaga saaraya. marka casharkan haddaad ka heshay oo maxay ahayd uu ku qanciyay fadlan ka codsanaa channel kusoo biirtay subscribe saatid sidoo kalena maxay ahayd asxaabtaada aad la wadaagtid waad mahadsantiin.